Cabdilaahi Maxamed Jibriil oo ka mid ah nabadoonnada Puntland isla markaana ahaa abwaan ayaa lagu xiray Garowe. Sababta keenta xariga nabadoonka ayaa lagu sheegay kadib markii uu taageeray socdaalkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ee ku tegay waqooyiga magaalada Gaalkacyo oo ay Puntland maamusho. xalayto ayuu igu yiri madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo mar haddii aad Puntland timid waxaad u timid shacabkii ugu dawlad jeclaa dalka Soomaaliya waxaad ku jirtaa gacan wanaagsan labadeedii gacmood ay geestii waqooyi Gaalkacyo nabadba booqashadaas kadibna oo ay si weyn Puntland uga soo horjeesatay shalay ayaa muuqaal uu soo dhigay baraha bulshada oo si aad loogu baahiyay baraha bulshada ayaa uu ku taageeray xukuumadda federaalka iyo safarkii ra'iisul wasaare Khayre ee Gaalkacyo waxaana sidoo kale xabsiga loo taxaabay shakhsigii ka duubay muuqaalkaas oo ahaa wariye hore uga soo shaqeeyay TV-yada Soomaalida. Xariga nabadoonka ayaa noqonaya markii ugu horeysay oo xukuumadda cusub ee Puntland uuna hogaamiyo Saciid Cabdullaahi Deni ay qof u xirto fikirkiisa u cabiray. dastuurka Puntland ayaa ku qoran qodobkiisa 13 qofku waxa uu fikradiisa ku cabiri karaa qaab hadal ah, saxaafadeed, qoraal, muuqaal, suugaan iyo habab kale oo sharciga iyo anshaxa waafaqsan. Cabdilaahi Cabdinuur Yuusuf Cabdilaahi Bakele, telefishinka caalamiga Ariel TV, magaalada Garowe.